xisbiga wadajir ee uu hogaamiye siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray wuxuu kaga hadlay shirkii lagu soo gabagabeeyay gudaha Dhuusamareeb iyo heshiisyadii lagu gaaray. Qoraalka xisbiga ayaa waxa lagu sheegay in heshiisku uu qabyo yahay isla markaana ay ka maqan yihiin laba dawlad goboleed iyo saamilayda siyaasadda dalka, balse xisbiga wadajir ayaa xusay in heshiiskaasi uu arko mid gogol xaad u ah doorashada dalka ka dhacaysa. Sidoo kale xisbiga ayaa tilmaamay in heshiiska uu dhigayo doorasho aan toos ahayn, taasoo uu sheegay in lala soo daahay isla markaana dawladda federaalka hogaamiye madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ay ku fashilantay qabashada doorasho qof iyo cod ah. Warka ka soo baxay xisbiga wadajir oo kamid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in si loo fuliyo heshiiskaasi in loo baahan yahay in wadahadal lala furo Jubbaland, Puntland iyo saamilayda siyaasadda si loo qanciyo. Waxa kale uu xisbigu ka digay muddo kororsi iyo inay dib ugu dhacdo doorashadu xilligeeda. Ugu dambeyntii xisbiga wadajir ayaa u mahad celiyay shacabka iyo madaxda Galmudug oo martigeliyay wajiga saddexaad ee shirka war-saxaafadeed ay si wadajir u soo saareen madaxweynayaasha maamul goboleedada Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Danay iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo lagu sheegay in labada madaxweyne khadka telefoonka ku wada xidhiidheen ayaa waxa ay kaga hadleen war-saxaafadeedkaasi arrimaha doorashooyinka la filayo in ay Soomaaliya ka qabsoomaan 2021 iyo shirkii Dhuusamareeb ee 3. war-saxaafadeedkani waxa lagu sheegay inuu qalalaasa siyaasadeed ka dhacay Soomaaliya intii u dhaxaysay shirkii Dhuusamareeb 2 iyo 3. arrinkaasi oo maamulada Puntland iyo Jubbaland ay hore uga hadleen talooyina ay ka soo jeediyeen. waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in shirka lagu gaadhay Dhuusamareeb uu ahaa mid ku kooban madaxdii ka qayb gashay isla markaana aanay qayb ka ahayn laguna matali karin maamulada Puntland iyo Jubbaland. haddaba war-saxaafadeedkani ay soo saareen ayaa ka koobnaa 4 qodob, waxaana u dhignaa sidani: 1. dowladaha Jubbaland iyo Puntland ayagoo ixtiraamaya aragtida ka qaybgalayaasha caddaynaya in qodobada qoraalka ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 19 Agost 2020 ee ku aadanaa soo jeedinta hanaanka doorasho oo dalka ka dhacda ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qayb gashay shirka oo ahaa madaxweynaha dawladda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxa ay caddaynayaan inaanay qayb ka ahayn laguna matali karin shirkii Dhuusamareeb ka dhacay. 3. dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxa ay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay laguna gaari karo hirgelinta doorashooyinka 2020 ilaa 2021 isla markaana ay noqoto mid waqtigeeda ku dhacda si la isla ogol yahay loona heshiiyo hanaanka loo marayo qabsoomidda doorashada farsamo iyo maamul ee doorashooyinka. 4. dowladaha Puntland iyo Jubbaland waxa ay beesha caalamka uga mahad celinayaan taageerada ay sida joogtada ah ula garab taagan yihiin dadaalada geedi socodka dib u dhiska hay'adaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya si loo helo xasilooni siyaasadeed, amni dawladnimo, wanaag iyo horumar dhaqaale. shirarka Dhuusamareeb uga socday muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah ayaa laga soo saarayay qodobo kala duwan iyadoo ilaa haatan aanay u eegayn shirarkaasi qaar midhodhal ah oo meel la isla dhigay. doorashooyinka dalka la filayo inay ka qabsoomaan 2021 iyo qaabka ay noqonayaan. ganacsatada qaadka Kenya ayaa soo jeediyay qorshe cusub oo ay sheegeen in ay uga hortagayaan dhibaatooyinka dhaqaale xumo ay ka dhaxleen hay'adaha suuqyada Soomaaliya bilooyinkii la soo dhaafay. waxa ay sheegeen in ay isku dayeen in dawladda Soomaaliya ay ka dhaadhiciyaan oo fasaxida qaadka, balse arrintaasi ay ka diidayaan. Kenya ayuu ugu baaqay inay raadiso xal siyaasadeed si qaadkooda loogu iibgeeyo suuqyada Soomaaliya. xubnaha guddiga ay ku midaysan yihiin ganacsatada qaadka ayaa sheegay in dhibaato dhaqaale xumo ay haysato, sida awgeed ay ku baaqayaan xal wanaagsan oo isfaham ku dhisan in ay wada gaaraan xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho. ururka ganacsatada qaadka ayaa dawladda Kenya ku qasbayay in ay furto soodinta ay la wadaagto Soomaaliya si ugu yaraan qaadkooda dhulka ay ku soo galiyaan Soomaaliya, maadaama diyaaradahooda dhowr jeer hawada laga celiyay loona diiday. ganacsatada qaadka Kenya ayaa waxa ay sheegeen in si maalinle ah ay u gudbin karaan 20 tan oo qaad ah oo badi ay geynayaan deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland waa haddii dawladda Kenya ay fasax u siiso ka gudubka soodinta.
gudoomiyaha ay ku midaysan yihiin ganacsatada qaadka Kenya ayaa intaa ku daray in haddii loo tixgeliyo go'aankaas ay ka soo kuman lahaayeen dhibaatooyinka dhaqaale ee soo gaaray intii lagu guda jiray xaaladda la dagaalanka COVID-19 iyo madmadowga siyaasadeed ee ka dhex jira dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. hadalkan ayaa daba socday kadib markii maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan oo la hadlay warbaahinta dowladda uu sheegay in Soomaaliya marnaba aysan aqbali doonin soo caga dhigashada diyaaradaha qaadka sida magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo marti gelinaysay shirka Dhuusamareeb 3 oo looga arinsanayay nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa 2021 ayaa waxaa madaxda dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gaareen heshiis ka kooban 17 qodob. Si aan wax uga ogaano araahda shacabka ku dhaqan degmada Guraceel ayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday bulshada rayidka iyadoona wax ka weydiinay heshiiskii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb sida ay u arkaan waxaana hadaladoodii kamid ahaa ay u dhiibanayaan talada ama ka naxaya waxa kaliya hadda aan anigu caqabad arki karaa nimanka baarlamaanka ah oo madaxweynuhu yiri talada lagu noqonaya hase yeeshee ayagu raba kursiga inay sii fadhiyaan inay diidmo ka keenaan haday diidmo ka keenaanna waxa waaye arrin carqalad Soomaali hadana sii gelinayso waaye waxaan ku baaqayaa nimanka baarlamaanka kursiga ayagu milkiilayaasha ka dhigtay inaysan ku kadsoomin arrintaas kursiga Soomaaliya oo dhan ka dhaxaya wiilba mar buu fariisanayaa waxaan leeyahay si tartiiba u ansixiya cabsida kaliya oo qaba waa in meeshaas buu ka yimaado labada maamul goboleed ka maqneed shirka markii hore walwala iga jiray laakiin hadda sidii rabeena la yeelay waxba uma arko dani sidoo rabaa la yeelay Axmed Madoobe sidoo rabaa la yeelay haddii ilaahay idankeeda leeyahay waxaan ku soo qatamayaa meesha waxa ka baxay dadka koonfurta xiga ma tashan karaan laakiin way tashadeen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad u soo dhaweynaa go'aankii ay soo saareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada wuxuu ahaa go'aan aad ugu farxo dadka Soomaaliyeedna ka farxiyo haddii aan nahay Galmudug ahaan ama shacabka reer Guraceel aad u soo dhaweynaa heshiiskaas ay gaareen maamul goboleedyada madaxweyne qorqorna aad iyo aad ay ugu mahadceleynaa qaabka uu sameeyay iyo sida uu martiqaaday iyo nabadoonnimada uu sameeyay iyo Soomaalinimada maanta oo u hiilay maanta Soomaaliya u hiilay aan dhigi karnaa aad iyo aad u soo dhaweynaa waa mahadsantihiin way soo dhaweynaa ay lagu soo dhaweey waliba ah in doorashada laga dhigo 301 waan soo dhaweynaa aad aan ugu soo dhaweynaa aragti ahaanteeda in deegaanada because 4 sano 301 hadii laga dhigo 4 sano damana waxay noqon doontaa 600 iyo kow ay noqon doontaa tan labaad waxaan si qaas u dirayaa isteedyada Galmudug ee isteedyada ka maqan oo Jubbaland iyo Puntland oo ayaga ruuxooda ka maqan aan waxaan dhihi lahay siyaasiyiinta dhalinyarada ka soo jeega reer Jubbaland iyo Puntland ma ahan inay u xirnaato qadiyada iyo wadaniyada Soomaaliya only Jubbaland iyo Puntland inay u xirnaato ma ahan waayo wax badan ee hooyada federaalka isku haysteenayeen laakiin maanta hadda reer Galmudug nahay waxaan aabaa federaalka waxaan ku soo dhaweynaa shacabka Soomaaliyeed shacabka isteedada meel kasta ay joogaan inay qaataan aragtida ay soo bandhigeen guddiga qabanqaabada Galmudug State Dhuusamareeb taasoo ah in laga dhigo doorashadii dadbaneed doorasho 301 si meeshaad xisbiyadeen u bilowdaan shacabkii Soomaaliyeedna aragtidooda isbedelada ugu soo qaataan Galmudug State ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Galmudug ha noolaato. munaasabada gabagabada shirka Dhuusamareeb 3 oo ka qabsoontay maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa halkaasi ka hadlay dhammaan madaxda dowlad goboleedyada sida Galmudug oo marti gelinaysay Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo 5 maalin ah joogay magaalada Dhuusamareeb si halkaasi loogu gaaro heshiis ay qaateen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ku aadan nooca doorasho. muddooyinkii u dambeeyayba waxaa magaalada Hargeysa kursi ka cayay qiimaha lagu iibiyo caleenta cagaaran ee ka timaada dalkaasi Itoobiya ee loo yaqaano qaadka. dadka cuna qaadka ee magaalada Hargeysa ku dhaqan ayaa waxa ay cabasho ballaaran ka muujiyeen qiimaha lagu iibinayo waxaanay bulsha TV oo ay kula hadleen goobaha lagu soo rogo caleentaasi cagaaran ee qaadka loo yaqaano waa kuwan dadka ku hawlan cunista qaadka cagaaran waxaana yiraahdeen
waxaan leeyahay waxaan ku hadlayaa dadka qaylo magacooga waxaan leeyahay nimanka ganacsatada ah ee qaadka keenaya war dadka sida ka daaya ilmaade rayaal qaadkiina uu soo wada galay 80 waad leediin haddaad ka day weydaana sida burcaal idin boobaya dadweynaha waxaan u sheegayaa waa malcajabeyna dhibata ma xeeraha shaqaalayaasha waxaan u sheegaynaa hadday joojin waayaan waxay wadaan inaan la boobo oo dowladduna dadka is hortaagi karin cid kale is hortaagi waxaan u sheegaynaa inay dadkooda u naxariistaan waxaan u sheegaynaa inay dadkooda u naxariistaan waddanka way arkayaan waxa haysta misaanad bilaa shaqo yaa loo badaya shaxaad ku sii gaadh waxaan leenahay dadka laga qabta madaxweynaha musabix oo leenahay dalka caasimada waxa toosiyay waa isaga cashuurta lagu kordhiyo oo leenahay boqolkiiba 99 lagu kordhiyo masaakiinta waxa wadaan halaga qabto dadkan dhigmeeratayaasha ee waxa shalay toole oramadu way soo hadashay qaadka bilaash bay kaga soo siinaya halka Itoobiya gudaheega wax sicir barro Itoobiya gudaheega jira ma jirto oramadu way hadlaysay halkan ay dadka nibarteen laba xaala meesha taagan cashuurta hadii lagu kordhiyo way qaadka goobeyna dilka guriyii laga soo xaday in boqolaal jaal la siisanayo dowladda sharafta la aqoonsan ama jaadka inay saan nooga joojiso oo 70 laga joojiyo ya ama in sidii hore laga dhigo way oramadu iga way heshiisay wax cilaaqaad oo ka dhaxeeyo Itoobiya wararka laga maqlaa ma jirto istaan guriyay naga dhistaan anaga joojiyaan sicir bararka hadii kale afkay ka hadlayaan xukunkani maanta ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta lagu riday Faarax Cabdirashiid Cilmi oo ka mid ahaa ciidamada daraawiishta ee Jubbaland kaas oo fal dil ka geystay duleedka koonfur galbeed magaalada Kismaayo isagoo dilay qof rayida oo deegaanadaasi ku nool sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xabsi 3 sano ah ku xukuntay xabsi ciidan Maxamed Rashiid Maxamuud oo isna la tilmaamay in uu la socday shakhsiga dilka geystay gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Bashiir Maxamuud Xareed ayaa faahfaahiyay xukunka dilka ah ee maanta ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay ku xukuntay askar ka tirsan ciidanka daraawiishta ee Jubbaland ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda ciidamada waxay u fariisatay kiis dil ah xilaalinta maxkamadda waxay ku si wadajir ah ugu soo eedeysay dable Faarax Cabdirashiid Cilmi 45 jir ina qaali Hilowle Xuseen ku dhashay Buule Xaaji ka tirsanaa daraawiishta Biroole baxsadna ka ahaa 4 bilood qoriga lambarkiisu yahay 5242 labo dable Maxamed Rashiid Maxamuud 22 jir ina Faadimo Cali Salaad ku dhashay Qandal ka tirsanaa daraawiishta Biroole ahaana baxsad 5 bilood inay dil u geysteen marxuum Cali Maxamed Mamad oo ahaa shacab Geli ah taariikhdu markay ahayd 26/7/2020 saacaduna ahayd 3 saac ee subaxnimo goobtuna ahayd duleedka Istanbul maxkamaddu markay dhageysatay eedda xeeraalayaha markay dhageysatay qiraalka dable Faarax Cabdirashiid Cilmi markay dhageysatay diidmada uu iska fogeeyay inuu dilkaas wax ka fuliyay dable Maxamed Rashiid Maxamed maxkamaddu markay u cadaatay in labada eedeysane ay ahaayeen askar baxsad ah kana waday deegaanka falal amni darro ah maxkamaddu markay aragtay aayadda 178 suuratul baqara iyo qodobka 434 waxay xukun dil ah ku riday eedeysane Faarax Cabdirashiid Cilmi taasoo ah qisaastii marxuum Cabdi Maxamed Mamad xukun xabsi ah 3 sano waxay ku riday eedeysane Maxamed Rashiid Maxamed wabillahi tawfiiq maalmihii ugu dambeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa waday dhageysiga dacwado eedeysanayaal lagu eedeynayo in falal dil ay ka geysteen magaalada Kismaayo iyo duleedkeeda kuwaas oo dilay dad rayida iyadoo maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay go'aan kama dambaysi ay ka gaartay mid ka mid ah kiisaskii maalmihii u dambeysay dhageysigeeda ee waday